السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي waxaa la fartuun maxamed cabdiraxmaan gabadhaana socota ayadana adna la dhahaa adna caami calguure waxaan ka nimaanay Australia Western Australia waxaana soo xil saartay gabdhaha gobolka Western Australia oo raba walaalaheen wiilkan yarka oo maxaan Soomaali dhahay inay caawiyaan wiilkan baa meesha ku soo baqan isbitaalka maanta eeto hadda waa markii labaad aan u imaano wiilkan yarka uu xanuunsan yahay dad badan oo Soomaaliyeed waxaan maleynaa inay ku arkaan Facebookyada iyo telefishinada labadiis lugood waa u jeedaan waa wiil yar oo aad u dhibaataysan qalliino badan buu galay hadda intaan aan Kalanbuur joognay istaakan cabaar buu ku jiraa aabihiis waa kana waa nala joogaa lacagta naloo soo xisaartay baan rabnaa anagu inaan gudbino oo gabdhaha walaalaheena oo gobolka Western Australia ka imaaday ay soo aruuriyeen intay wiilkan ku arkeen TV-ga ay ka danqadeen xanuunkiisa lacagtaas baan rabnaa inaan u dhiibno lacagta tiradeeda waxa waaye waa 12,250 ringgit oo ah Malaysian dollarna waxay ku tahay 2,850 dollar oo US ahead oo u dhigmata 12,250 ringgit oo Malaysian ah lacagta waxaan hadda u dhiibayaa wadaadka wiilka dhalay iyo rasiidkiiba waxaan Soomaali maxaa adi dhahaysan wadaadkan ku wareejinayaa asaga inay dhamaystay intayna السلام عليكم جزاك الله walaalahey khayr Allah siiyo qaasatan walaasheedii maanta maartay aad iyo aad maartay inuu soo booqato isbitaalka waxaan leeyahay horta jazaak Allah khayr intii maartay ka soo qayb qaadatay reer Australia oo maartay wiilkooda Maxamed Soomaali ilaahay ajri xasanaad Allah ka siiyo ilaahay ubadkooda u badbaadiyo bidnillah waxaan ilaahay ugu baryaynaa iyaga waxay ku farxan inuu ilaahay siiyo maxaa yeelay qofkii caawin waa wiilkooda waan mid la isku leeyahay جزاك الله لنا إذا كان إلهي وحان إذا كبرينا بدل كيسو بدن إنه إلهي دنسي إن شاء الله حدنا لعقتي واهلي واهستا ولا شيء وإيك أنت غير الله سي ولا عليه ولا سعوده مركا آدي هذا وفرح سنة هوان إذا سود عيني إن شاء الله إلهي إذا كان هذا أنفعه صدقين الله هذا كريم مداد كل يواتين وفائدة كويشين إن شاء الله جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناسن داوديال ميل والبوا joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ahaa oo alaaba aynu ku soo bandhigi jirnay isla markaasina aynu kugu soo gudbin jirnay xisaabaha walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo sadaqaystaan Maxamed Soomaali waxaan mareynaa qaybtii 9aad ee barnaamijkii taakulaynta Maxamed Soomaali waxaan rabaa hadduu alla idmo inaan idin sheego Maxamed Soomaali caafimaadkiisa wuxuu marayaa meel wanaagsan waxaana sidaad wada ogtihiin lagu sameeyay qaliinkii koowaad haddana waxa uu ku guda jiraa baxnaanadii qaliinkii koowaad waxaana u dhiman insha Allah qaliinkii labaad wuxuuna isbitaalka Tawakkal ugu jiraa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan fadlan ha ka caajisanina inaad soo kaalmaysaan walaalkiina dhiban oo raaxada nolosha ciriiri uga jirto waana wiilkiina oo kala Maxamed Soomaali insha Allah waxaan marxaati ka ahay aabaha iyo Maxamed Soomaaliba inay mar walba niyada idinka jecel yihiin oo ay mar walba idin soo duceeyaan daawadayaal hadduu alle idmo waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo walaalaha Soomaaliyeed xisaabaadkii ay ku soo sadaqaysteen Maxamed Soomaali waxaan rabaa inaan ku hormaro jaaliyada qayb ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool Australia waa community ama dad isku tagay oo walaalo Soomaaliyeed ah oo ku nool Australia ayaa waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysteen lacag dhan 2,850 dollar waa 2,850 dollar oo u dhiganta 12,250 ringgit waxayna soo wakiishteen walaalahan Soomaaliyeed oo qudhoodaba ka yimid Australia waa Fartuun Maxamuud Cabdiraxmaan iyo Adna Caamir Cabdi labadaas gabdhood oo walaalo Soomaaliyeed ah ay soo wakiishteen Soomaalida ku nool Australia qaarkood oo isku tagay oo ka damqaday dhibka Maxamed Soomaali waxayna soo guddoonsiiyeen ay u soo diraan Maxamed Soomaali lacagtan dhan 2,850 dollar oo u dhiganta 12,250 ringgit waa 50 ringgit waa 12,250 ringgit ayaa u dhigantaa waxaan rabaa inaan guddoonsiiyo Aab Axmed Jeelaani si markaas ay idinkugu xaqiiqoodo in macna lacagtii walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo sadaqaysteen Maxamed in Aab Axmed Jeelaani uu helay hay Axmed lacagtii walaalaha Australia dabcan waa guddoontay inaa hesho u sheeg farintan maxaan ugu duceeleed walaalaha isxilqaamay ee Maxamed Soomaali dhibkiisa ka damqaday ما شاء الله ولا عليه وحان ليه إلهي أدين بركيه إلهي أجري حسنات الله أدين كسيو
runtii waad iga farxiseen sidaad iga farxiseen allah idinka wada farxiyo saad u dhantiin heer Australia waa idin soo duceynay wiilkeenu idin soo duceeyay ilaahay waxaan idinka baryaynaa idinkana waxaad ku faraxdaan ka bedelkiisoo ka weyn inuu ilaahay idin siiyo insha allah mar walbana waa idin soo duceyn doonaa ilaahay idinkana ajri xasanaad allah idinka siiyo jazaakallahu khayr waa tahay allaha idin aqbalo walaalaha Soomaaliyeed ducada Aaba Axmed Jeelaani dabcan waxaan ka codsanaynaa sidoo kale community-da ku dhaqan Australia ee Soomaaliyeed iyo dadka kale faraha badan ee caalamka ku dhaqan inay Maxamed Soomaali soo caawiyaan isla markaasina ay gacan ka geystaan mar inuu Maxamed Soomaali dib loogu isugu istaago hadduu allid waxaan gudagalayaa daawadayaal walaalaha lacagaha ku soo diray xawaalada Taj waa xawaalada Taj walaalaha lacagaha ku soo diray waa Caasha Axmed Nuur waxa ay ku nooshahay Saudi Arabia waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $75 Shukri Geedi waxa ay ku nooshahay Australia waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $200 qof ku soo gaabiyay magaciisa Suldaan oo ku nool Jarmalka wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $100 Raxma Xuseen Iimaan waxa ay ku nooshahay Mareykanka waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $150 waxayna soo dhigtay xawaalada Amaana walaalaha kale ee lacagaha ku soo sadaqaystay ee xawaalada Amal soo dhigay lacagtan waa Sofia Ahmed Maxamed waxa ay ku nooshahay Mareykanka waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 walaalahan Soomaaliyeed maxaad ugu duceyn lahayd walaalahay waxaan leeyahay horta allah idin barakeeyo ilaahayna ajri xasanaad allah idinka siiyo intiina soo caawisay intiina soo duceysay ilaahay waxaan idinka baryaynaa idinkana inuu muraadkiina ilaahay idin sahlo biidnillaahi kariim insha allah mar walbana anaga ducadaasa idin haynaa waana aad iyo aad noogu farxiseen ilaahayna waxaan idinka baryaynaa sidaad noogu farxiseen si ka daran inuu ilaahay idinkaga farxiyo ilaahay uudkiina hanii barakeeyo ilaahay idin deysto insha allah anagana hadda xaaladdeena waa aad iyo aad u fiican tahay wiilkay aniga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maxaa yeelay murugtii iyo problemkii aan ku jiray anaga saarteen ilaahay anaga bixiyay ku sokana Soomaali weyn idinkaa u sabab ahaa meel walba aad joogtaan qurbo joog ha noqdo Soomaaliya ha noqoto meel walba cid maanta oo yacni iga fariisto ma jiro ilaahay waxaan idinka baryaynaa idinkana ajri xasanaad aan la soo koobi karin inuu ilaahay idinka siiyo insha allah waa tahay walaalaha Soomaaliyeed ee xawaalada Amal Express lacagaha soo dhigay ayaan gudagaleynaa hadduu allaha awoodda la raalli u ka noqdo qofka ugu horeeya waa Shucayb Yuusuf Xasan waxa uu ku nool yahay Mareykanka wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $200 qofka kale waa Raxma Saciid Maxamed waxa ay ku nooshahay Sweden waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 xawaalada Iftiin walaalaha lacagaha soo dhigay waa Sagal Aadan Cali waxa ay ku nooshahay Sacuudiga waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 walaalahan Soomaaliyeed maxaa ugu duceyn lahayd walaalahay waxaa leeyahay jazaakallahu khayr ilaahay idin barakeeyo ilaahayna ajri xasanaad allah idinka siiyo intiina soo caawisay intiina soo duceysay ilaahay waxaan idinka baryaynaa idinkana waxaad ku faraxdaan inuu ilaahay idin siiyo insha allah qof walba muraad uu leeyahay waxaan ilaahay isagana ugu baryaynaa inuu muraadkooda ilaahay taam ugu dhigo laanno wiilkayga soo caawiyeen wiilkooda soo caawiyeen taasna boqolkiiba boqol aad iyo aadaan ugu faraxsanaani wiilkayga sidaad noo soo garab istaagteen sidaad noo soo caawiseen sidaad noogu duceyseen iyo sidaad noogu soo oyseen idinkan ilaahay waxaan idinka baryaynaa sidaad noo soo caawiseen si ka daran inuu ilaahay idin caawiyo insha allah qof walbana waxaan ugu duceynaynaa aan kusoo celcelinaynaa qof walba oo maanta oo walaalkeena ah oo Soomaali ah meel walba joogo oo muraad uu leeyahay ilaahay waxaan ugu baryaynaa muraadkiisa inuu ilaahay taam ugu wada dhigo insha allah mar walbana waxaan idin leenahay jazaakallahu khayr waa tahay allaha idin aqbalo ducada Aaba Axmed Jeelaani walaalaha Soomaaliyeed mar walba waxaan ku soo celcelinaynaa daawadayaal Maxamed Soomaali arintiisa waa faanole fari kama qodna waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal inaad soo garab istaagtaan isla markaasina aad caawisaan dhibane Maxamed Soomaali oo ah nin muddo ama wiil yar oo muddo ku xanuunsanayay Soomaaliya iyo Malaysia waxaan idinka codsanaynaa mar inaad rajada noloshiisa aad dib u soo celisaan dhibane Maxamed Axmed Jeelaani oo ku magac dheer Maxamed Soomaali walaalaha lacagaha xawaaladaha Taj Amaana Amal iyo Iftiin soo dhigay waxaan intaas aynu ku soo gabagabeynaynaa waxaan rabaa in lacagii aad soo dirteen oo xawaaladaas aad ku soo dirteen sidoo kale inaan guddoonsiiyo Aaba Axmed Jeelaani si aad u aragtaan in lacagtiini uu helay Axmed Jeelaani lacagta xawaaladaha walaalaha soo dhigeen shalay maantay dabcan iga guddoon dabcan adaaba gacantaada ku soo qaatay
waxaan rabaa bal in fariinta aada u diraad walaalaha soomaaliyeed iyo ducadaadaba inaad soo koobtid. jazaaka allah walaalhay kheyr allah idin siiyo, lacagtii waatana waa haystaa, ilaahayna maaragtay idinkana allah idin barakeeyo, ilaahayna waxaan idinka baryaynaa muraadkaa leedin inuu ilaahay idin sahlo. maantana waan dareemi karaa farxadda maanta aan haysto iyo daraasaan ahaa farqi weyn aa u dhexeeyo. ilaahayna macnaa yarkaan maanta oo wariyahaasina ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo, waayo mugdiyaan ku jirnay aftiinoona soo geliyey. taana waxaa u sababaa walaalahayna soomaali weyn meel walba ay joogaan, qurba joog ha noqdo, yacni koonfur soomaali ha noqoto, meel walba cid maanta ii kala harta ma jirto. taana waxaan dareemayaa inaan ahay nin soomaali wadani ah. ilaahay ajri xasanaad allah idinka siiyo, farxadda aad iga farxiseen ilaahay idinkana ka badankiisa allah idinka farxiyo insha allah. waa tahay axmed, si walaalaha soomaaliyed u arkaan lacagtii kale ee iyadana australia, dabcan lacagtan waa lacagihii australia walaalaha soomaaliya ay kasoo direen, tanna waa tii xawaaladaha aan kasoo qaadnay. daawadayaal insha allahu tacaala mar walba sidaas ayaan u caddeyn doonaa waxyaabaha aad maxamed soomaali kusoo sadaqaysataan. maxamedna waa guddoonsiin doonaa sidoo kale, inkastoo isbitaalka uu ku jiro oo uu xanuunsan yahay oo obarashanadii iyo weliba qeybihii kala duwan ee caafimaadka u marayo, laakiin insha allahu tacaala markay fursadda noo saamaxdo isaguna waan idinla soo hadalsiin doonaa hadduu alla idmo. intaas aynu kusoo gebangabeyneynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo in alaaba uga hadli jirnay xisaabaadka maxamed soomaali iyo informationadiisana aan kusoo bandhigi jirnay. intaynu barnaamijkan oo kale dib hawada uu kulmi doono, waa aniga iyo ab axmed jeelaano idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.